qodobo ilaa 21 qodob ayuu madaxweyne Trump yani hordhigay ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ahayd gabi ahaanba in wada hadal lagu soo dhameeyo arrinta Gaza oo 3 sano ciidanka Israa'iil ay garaacayeen dhul iyo cir taasina waxay sababtay in adduunyada dhan dhaleecayn la kulanto. wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar oo aan ku falanqayn doono xaaladda Gaza iyo sidoo kale guud ahaan bariga dhexe. sidaan ognahay dagaalkii soo bilowday 7 Oktoobar ee kooxda Xamaas ay ku qaaday gumeystaha Israa'iil ayaa waxa uu sababay in Israa'iiliyiintu duulaan ay ku tirtirayaan ururka Xamaas inay ku qaadaan marinka Gaza kaasi oo ku dhow hadda inuu gaaro 3 sano. xalay saqdi dhexe madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump iyo sidoo kale Benjamin Netanyahu ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen si wada jir ah xilli ay warfidiyeenada ula hadlayeen waxa ay soo bandhigeen barnaamij ay doonayaan in ay nabad waarta uga dhaliyaan marinka Gaza. haddaba barnaamijkeena waxa aan ku falanqeynaynaa suuragalnimada marinka Gaza inay ka dhalato nabad waarta taasi oo hormuud ka yihiin Mareykanka, Masar, Qatar iyo Israa'iil iyo sidoo kale wadamada doonayo in guud ahaan bariga dhaxaba ay ka dhacdo nabad waarta oo ay dawladuhu si wada jir ah ugu wada noolaadaan. waxa khadka taleefanka ku jiro Ustaad Timo Cadow falanqeeya arrimaha bariga dhexe iyo guud ahaan siyaasadda caalamkaba. Ustaad marka hore oo soo dhaweynaya artiin ku soo dhawow. xalay maxaa dhacay aqalka cad maxaa ka dhacay horta? nuux waa maasan tahay artiina waa ku dhawahay xalay madaxweyne Trump iyo madaxweyne ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa muddo laga sugayay in xaalka gobolka bariga dhexe ay go'aan ka gaaraan. marka xalay waxaad u qabtaa in la isku jiijiido labada dhinac in nabadda gobolka bariga dhexe laga wada shaqeeyo. maxaa yeelay shirkii guud ee golaha qaramada midoobay ee sanadkan dhacay ra'iisul wasaaraha Israa'iil runtii wuxuu kala kulmay waji gabax khudbadiisii waa laga wada dareeray dawladda Yurubiyaana ayaa aqoonsaday maamulka Falastiin taasina waxay sababtay in ay Mareykanka iyo Israa'iil ka fakaraan in ay dawlad ayagu ay dabada ka riixayaan inay ka sameeyaan marinka Gaza. taasina waxaad u qabtaa markii hore inuu ra'iisul wasaaraha Israa'iil diidayay laakiin hadda waxaad u qabtaa in darbiga la geeyo oo hadda ogol yahay in two state solution laakiin two state solution ka markii la gaarayo wuxuu leeyahay waa in anagu go'aan aan ka gaarnaa dadka maamulaya marinka Gaza oo aysan mar dambe ku soo laaban qoladan Xamaas oo Gaza haysta. waa mahadsan tahay iyada ama muqtaraxii xalay ay soo bandhigeen waxa uu dhigayo runtii waxa waaye qodobo ilaa 21 qodob ayuu madaxweyne Trump yani hordhigay ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ahayd gabi ahaanba in wada hadal lagu soo dhameeyo arrinta Gaza oo 3 sano ciidanka Israa'iil ay garaacayeen dhul iyo cir taasina waxay sababtay in adduunyada dhan dhaleecayn la kulanto. sidoo kale madaxweyne Trump ayaa ku nuuxnuuxsaday in gobolka bariga dhexe haddaanan dawlad Falastiin laga asaasin inaysan dagaal faa'iido lagu gaarin. maxaa yeelay taariikhii Israa'iil muddo 3 sano wax u qabtaa inaysan weli Gaza ama marinka Gaza iyo Red Sea iyo badda iyo xeebta dhan aysan gaarin weli oo dagaalkii meeshii 3 sano ka hor uu ka bilowday uusan horumar badan laga gaarin. taasina waxay hadda ku qasabtay in maamulka Israa'iil iyo maamulka Mareykanka dib uga fagaraan inay qaab dhismeed ku sameeyaan gobolka bariga dhexe siiba marinka Gaza. inkastoo wadamada carabta hadda Qatar iyo Masar ay yihiin maqaarsaar laakiin go'aanka saxda ah waxa iska leh madaxweyne Trump iyo Benjamin Netanyahu iyo saaxiibadiisa Imaaraadka Carabta. dabcan heshiiskan ama muqtaraxan ay soo bandhigeen si wada jira madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha gumeystaha Benjamin Netanyahu markii aan fiirino Xamaas maxay uga falcelisay ama suuragalnimada in two state solution oo gacan ku sameys ama gacan ku rimis ah Xamaas intay aqbali karto intay dhantaas dhihi karnaa? runtii inkastoo hadda war rasmi ah Xamaas laga gaarin laakiin waxay u maleynaysaa inay ganafka ku dhufa doonto. maxaa yeelay ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxa lagu qancinayay in maamul oo Ramallah ka jiro oo qolada Ramallah in loo dhiibo laakiin wuxuu yiri waa khiyaano anagana la khiyaanaynayo marna maamul dambe oo Falastiiniyiin ah oo kooxo Islaamiyiin in ku soo laabtaan marinka Gaza. taasina waa wixii hadda aan ka gaashaamaynayno. marka waxaad u qabtaa wadamada Carabta iyo Xamaasiyiintu inay ka soo horjeedaan heshiiskaas inkastoo wadamada Carabta aysan go'aan rasmi iyo xoog leh aysan yahay laakiin haddana wadamada reer galbeedka ayaa dhibaatadan dagaal ka riixay oo raba in two state solution oo markii hore aragtida madaxweyne Obama iyo madaxweynayaashii ka horreeyay Mareykanka markii uu Trump yimid waxba qabtaa inuu meesha ka saaray xilligii hore two state solution oo ahayd in kaabo ay ka noqoto dawladda Israa'iil gobolka bariga dhexe. taasina waxay sababtay in dagaal gobolka bariga dhexe oo 3 dal oo kala duwan oo sida Lebanon, Yemen iyo Syria meelo kala duwan iyo Falastiin dhulkan Falastiin in dagaal Israa'iil ka gasho meelaha qaarkood ay ku guuleysto madax ayna disho laakiin waxa uu qabtaa inay hadda Israa'iil kuleelku u gaaray oo rabto in nabad la gaaro.
dabcan tima caddo waxay u muuqdaan hawshu isdiidooyin badan inay ka dhex muuqdaan sababtan saas u leeyahay waxa waaye galbeedku wuxuu doonayaa dawlad maqaar saar ah oo ciidan aan lahayn dabcan Israa'iiliyiintu ama Tel Aviv ay garwadeen ka yihiin halka Falastiiniyiintu ay doonayaan dawladda ay iyaga leeyihiin oo ciidankeeda dhammaan ama mu'assasaadkii dawliga ah u dhameystiran oo awood leh inay sameystaan isdiidooyinkaas hel isku waafajinaa dabcan soo lama dhihi karo meeshaas waa maxaa lahay mahmaadii ahayd jugjug meeshaada joog runtii markaa fiirisid qaabka madaxweyne Mareykanka Trump uu fakarayay iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxaad u qabtaa in tahay isjijiid oo gacmo daalis ah maxaa yeelay waxa ay dalbanayeen ummadda Falastiiniyiinta ah oo ah laba dawlad oo awood leh oo Falastiin iyo Israa'iil in waxaad u qabtaa madaxweyne Trump inuu taas doonayn ra'iisul wasaaruhu uusan doonayn waxaa la rabaa dawlad yabyab ah oo maamulka Israa'iil Tel Aviv ka amar qaata sida kuwa Falastiiniyiinta ee Ramallah jooga in la sameeyo taasina waxa ay dilaysaa halgankii 70 sano ka badan ee loo soo gala dadka Falastiiniyiinta taasina waxay dilaysaa qiyamka dadka Carabta oo inta badan wadamada Carabta wadamada Khaliijka laga reebo way ka aamuseen xaaladda gobolka Bariga Dhexe oo inta badan kama hadlaan maxaa yeelay dhibaatooyinkooda localka ah iyo danahooda localka ah ayay ka hadlaan inta badan maalin waxaan arkaynay hadal uu yiri madaxweynaha Masar oo inta badan wadanka ugu tunka weyn wadamada Carabta oo la yiri maxaa gargaar u gaarsiin weydeen wadamada Marka Gaza ama maxaa u jabin weyseen xataa cunaqabateynta saar wuxuu ku jawaabay anagu hadaan Israa'iil ogolaansho ka helin ma geli karnay taas oo la yaab ku noqoto wadamada Carabta iyo wadamada dunida muslimka runtii waana wax macquul ah oo inta badan waxaa la yiraahdaa militariga Israa'iil xarmada ugu weyn Mareykanka ayuu ka helaa Mareykanku ma rabo in Israa'iil Masar ay duqeyso marka waa in ogolaansho laga helo hadii gargaar xataa la gaarsiinayo Marka Gaza ama Marka Rafah oo ah marka galiya ee u furan ummadda Falastiiniyiinta ee ku dhibaataysan Marka Gaza marka waxa weeye xaalad waxay abuuraysaa runtii ana inaba laga soo waabsan karin taasina waxay sameeyaysaa wadamada Carabta iyo wadamada muslimka inay indhaha ka daawadaan oo maalinba qolo la riixo waxaan ogeyn wixii ka dhacay Dooxa oo duqeymihii Israa'iil ay u geysatay inkastoo xalay markii khudbadda uu jeedinayay ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu yiri waxaan raali gelin ka bixinaynaa duqeyntii aan ka geysano Dooxa taargetkeenu ma ahayn muwaadiniin qadariyiin ah taargetkeenu wuxuu ahaa Hamas dabcan heshiisyada la gaarina waxaa ka mid ahaa 20ka qodob in Israa'iil mar kale aysan duqeynaynin caasimadda Dooxa ee wadanka Qatar markii aan fiirino Trump xalay war-saxaafadeedkiisii hanjabaad ku jirtay tiro dhowr jeerna Hamas uu hanjabay oo wuxuu dhahay haddii Hamas ay aqbali weydo qodobadan soo bandhignay ee la doonayay in heshiis nabadeed lagu gaaro marinka Gaza Israa'iil waxay heli doontaa waxa loo yaqaan awood buuxda ama taageerada dhameystiran Tel Aviv ama Washington ay siinayso Tel Aviv haddii aan halkaas qodobkaas oga imaano shalay waxa gaaray wadanka Masar boqorka ama hogaamiyaha Abu Dhabi kulankaas markii aan fiirino xaaladda bariga dhexe socdaalkaasi muxuu horta ka dhigan yahay socdaal noocaas in uu halkaas ku tago ayadoo aan ognahay Masar xaaladda bariga dhexe ama midda marinka Gaza halka ay ka taagan tahay socdaalkaas ujeedkiisu muxuu ahaa runtii inta badan wadamada Carabtu markii dhibaato dhacdo way isku booqdaan oo waa booqasho normal ah oo ma ahan booqasho hadda looga soo horjeedo xaaladda gobolka Bariga Dhexe laakiin dabcan wadamada Carabta iyo bilaabashadii dagaal 3 sano ku dhawaad ka hor 7 Oktoobar booqasho wali oo nin qof mas'uul ah saas oo kale taa ku tagay Mareykanka Gaza ma jirin ku tagay Qaahira ma jirin markii laga soo tago booqashooyin kale oo iska hooseeyo in maxamed bin Zayed halkaas uu tagay xilligan oo ognahay eedeymaha loo jeedinayo maxay ka dhigantaas dhihi karnaa runtii si kale markii loo eego waa fariin muhiim ah oo dunida Carabta xoogaa inay baraarug hoose jiro oo yani Israa'iil looga soo horjeedo laakiin mararka qaar waxa uu qabtaa waxaas in indhaha la iska qarsanayo booqashooyinka wadamada Carabta waa ogtahay waxa waaye wax mira dhal ama aan oo waxaan ogeyn shirki ugu dambeeyay wadamada Islaamka ee ku yeeleen magaalada Dooxa dalka Qatar oo looga soo horjeedo runtii go'aanada ay soo saareen iyo waxay ahaayeen wax loo aad u hooseeyay ahaayeen wixii laga filayana ma ahayn waxa la rabay inay awaamir cad Israa'iil laga qaato reer galbeedka laga qaato laakiin waxa uu qabtaa inta badan shirarkan iyo booqashooyinkani waa booqasho dana dawladaha ku saabsan maahan dana qadiyad oo gobolka Bariga Dhexe ama frameworka qadiyada dhexe bedeli aniga ilama muuqato timacado markaan fiirino barihi u dambeeyay tan iyo bilaabashadii dagaalka ama xaaladda Bariga Dhexeba Israa'iil markay Gaza ku duushay dagaalka 12 maalin ee ka dhaxeeyay Iran iyo Israa'iil
duqaymihii ay ka geysteen Masar duqaymihii ay ka geysteen Israa'iiliyiintu gudaha Suuriya weerarkii Dooxa midka Yemen ee Xuutiyiinta iyo sidoo kale Israa'iil ka dhaxeeya waxa ay soo tirayay galbeedku markii la fiiriyo hogaamiyaashooda iyo shacabkooda si weyn inay u garab taagan yihiin shacabka reer Falastiin Gaza hadda badaha waaweyn ee Hindiya ku Mediterranean-ka waxa ku jira kumanaan doomood oo loogu magac daray kasro xisaar ama in cunaqabataynta ay jabiyaan kuwaas oo ku wajahan Gaza markii la fiiriyo sidoo kale waxa ka maxaa saaran maraakiibtaas dadka ugu badan saaran waxa la Turki waayo ay ka mid yihiin dad wariyaal caan ah sidoo kale xildhibaano mas'uuliyiin wasiiro Turkiguna maalmihii la soo dhaafay badda Mediterranean-ka wuxuu u diray laba markab oo kuwiisa hubka xambaara oo sida weyn marka qaar u difaaca gantaalada suuragalka in la soo tuuro adigoo soo koobayo xaaladda bariga dhexe si guud mustaqbalka bariga dhexe sidee noqon karaa Gazana maxay ku dambeyn kartaa runtii waa maasan tahay u fikirayay in xisaarka ama hareerinta lagu hayo magaalada Gaza la jibsho oo inta badan gargaaro kala duwan oo dawladda Turkiga ay u direysay Gaza ayaa tagay inkastoo xilliyo kala duwan dawladda Israa'iil ay dishay dad u socday Gaza taasina labada dal Israa'iil iyo Turkiga ay dhibaato ka abuurtay laakiin hadda adduunkiya u hiilay wadamada Falastiiniyiinta wadamada ugu weynaa ee Ingiriiska safaaradiisii xarunta xafiiskii oo Falastiiniyiinta ay ku lahaayeen magaalada London ayaa waxa loo wareejiyay safaarad rasmi ah Faransiiska wada ogeedeed uu aqoonsaday marka waxaad u qabtaa in indihii caalamka lagu soo jeediyay Israa'iil inta badan wadamada aqoonsanaya waxay ahaayeen wadamo Yurubiyaana wadamada Yurubiyaantuna ay ka baawar sareeyaan wadamada Carabta oo wadamo kale ayaa aqoonsanaya laakiin hadda waxa u qabtaa in xisaarkaasi inuu soo dhamaanayo oo waqtigii Israa'iil iyo aniga waxaan isleeyahay aragtideeda Israa'iil oo qariinada ra'iisul wasaaruhu soo bandhigay xarunta UN runtii waxay ahayd in qaab cusub laga taqaluso xusiyiinta laga taqaluso qolooyinkan Xamaas iyo waxa dhan laakiin waxaas ilama muuqato Xamaas markii Gaza u dambeyn doona in loo sameeyo maamul Falastiiniyiin oo adliis ka amar qaado wadamada Carabta laakiin aan ka amar qaadan maamulka Yuhuudda bulshadaasna aan laga barakicin marga Gaza taasi waxay noqonaysaa haddii laga barakiciyo in ummadda khaliijka iyo wadamada Carabta dhan saameyn ku yeelato maxaa yeelay 70 sano ayuu dagaalkaani socdaa Israa'iilna wax hadda libin ah kama gaarin marka waxaan isleeyahay caalamkaas adduunyada u soo jeestay in arrinta Falastiin cod dheer la gaarsiiyo iyo qadiyadda Falastiin oo runtii hadda aad u qabtid sanado ka hor meeshay ahayd waxaad u qabtaa in isbedel weyn hadda uu jiro oo ummadda reer Falastiin ay helayaan garab iyo gaashaan ka duwan wadamada Carabta aad iyo aad waa mahadsantahay Timcade waa kaga mahad celinaynaa waqtigaaga kaasina waxa uu ahaa Ustaad Timcade oo falanqeeya arrimaha bariga dhexe iyo guud ahaan siyaasadda caalamka barnaamijkeenana waxaan ku falanqeynaynay kadib markii xalay madaxweynaha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale hoggaanka aqalka cad Donald J Trump ay soo bandhigeen qodobo kuwaas oo la doonayay in nabad waarta looga dhaliyo xaaladda bariga dhexe gaar ahaan marinka Gaza oo ku dhawaad 3 sano uu ka socdo dagaal tan iyo kulanta dambe waxa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo